waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay boys iyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6800 meelahaas ay noqotay qolana 5700 maanta waa kuwan yiraahda xanuunada ugu tirada badan ee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay exercise laan exercise la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuurto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisa ba khatar ku jira ka kale nolosha inaad wax tar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta galaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaaga ba khatar galaya ولذلك بقى طبعا ما أنت واحد الماميان قفكوا إنه نشاط سكيليو ما معان بعد غبطة ما سكر بعد غبطة ما كم بعد غبطة ما أنت صعو أنت قبو أنت يعني هو وحقبو فردقوا مركا عقلي أنا وما في عنا إسك فردقا وحبل لقوا قمانيني شركنا وما في عنا آخرنا وما في عنا أدونا وما في عنا ليزي نسو مركا نولشة ميل لبو حكا جماله وحماشة الله قفك مؤمن كي إنه منتج نغضه qof wax soo saar leh inuu noqdo waliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barba isle faataka alqatar ka sheegi jireen yaani waqtigiiba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta waxa laga yaabaa dadka badheysay oo maanta kuntan jirbaad ama waxbaad baran karaysaa dad ba kuntan jirreynta ku bilaabeen culimadii waaweynay dunida noqday ما garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adiga waxa ku xilka ku saaranay wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya wuxuu tilmaamaya in qaamat as-saa'a wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an la taqum hatta yaghrisaha falyaghrisaha nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiilada waxa la yiraahdaa geetimireedka yar la abqaalayo geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaarsiin karto inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaarsiin karto beer oo inaga iyadaan qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa oo leenahay waan gaboobay Soomaalidu 40 jirkay ku gabowdaa Soomaa في Soomaaliga markuu bini'aadamkuba uu xoog badnaa markuu gaaro ayuu yiraahdaa waan gaboobo xolabo iga dhamaadeen bini'aadamku aqligu ka gabooba haddaad maanka ka gabowdo ayuu maad gabowday inta kale waxbaad qaban kartaa sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla al-mawt in furas jiro inta geerida ka horeysa inaad fursad haysato fursad wax lagu qabto inaad haysato waxaad yareysanaysaa wax weyn noqda waxaad yareysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraan inaad qaybtaa waa wax kula yar Soomaa xadsalada oo haddaan maalin kasta sadar qayb goorma quraanka dhamayn haddaan sadar qayb goorma quraanka dhamayn waxay dhahan dhowr iyo 10 sanadood ku dhamaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto hadda waa sadar hal sadar waxay dhahdaan wax qabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markan aad qabanayso wax yaraantiisa ayay ku muuqanay haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood dad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin haddaad tiraahdo ma xaashi aan qorayba buug noqon doonta maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo wax qabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taas waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin in wadaada wuxuu tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu
gaariga soo socda uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray una cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda inta gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinu walaa taxzanu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniintow wahniyo idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinkaa koreeya baa ilaahay tilmaamaya haddaa kuwa mu'miniina tihiin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koraynaysaan xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy waka'ayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kathiir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدنا أنت النبي قاتل معه الربيون معي سايلا دقال قالين كوا ربي لو نسبي داد إلهي سليبي ومي ضعيف وحيد بسو قاري مي إسديب مي إسدول دقين وحي نغدين داد ولو markaa lagaba xoog batay wada camalkii ilaahay intay natiijada ka gaarayaan ayuha lahiba marka xadiiska kan wuxuu nabigu ku gabagabeynaya calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegay tiiraanyadooda inaad isku mashquulin oo wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ha oranin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay faina low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan albaabka shaydaankay furtaa oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu haddayna la joogi lahayn waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihiin muslimiinta soo dhimanaysa hadday iska joogi lahayn oo nala fadhiyi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen labana dileen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim waar xataa guryihiina haddaa ku jirtaan intii wakhtigu ka dhammaatay geeridu way u iman lahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala saa awgeed low waxay culimada qaar yidhaahdaan mawducu tacliimkuunbay ku fiicantahy ayaa la isticmaali karaa oo maalan jaamacad baad ka soo qalijabisay wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yidhi ila tale markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniskaa haysan lahaa low kaan haddaan jaaniskaa haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa waa litacliim qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa waddadan soo marayo ma fiicne waxaad isku daydaa maxay kan kale inaad saas daraaddeed buu nabigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu markii ay uu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadyiga waday haddaad hadyidu waddo ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nabigu leeyahy hadyigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam culamada waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana oo waa maxay qul maa shaaa allahu kaan waa inaad rumaysataa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima wixii tegey waxba kama bedeli kartid maadaama aanad waxba ka bedeli karaynin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto ina allaha kaana caliiman xakiima bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
waxaan ku soo koobaya markaa xadiidka dhammaantiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cajsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno wain asaabaka shay-un falaa taqul haddii wax sidii aad rabtay natiija u dhici weydana ha odhanin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa laakiin waxaad tidhaahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal faina low taftaxu camala shaytaan sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin